xildhibaanka degmada Dhadhaab Mudane Faarax Macalin Maxamed ayaa rajo badan ka muujiyay waxqabadka xildhibaanada aqalka hoose u matala degmooyinka gobolka xubnaha aqalka sare iyo wakiilada golaha haweenka ee ismaamulada Gaarisa Wajeer iyo Mandera. Mr. Macalin oo waraysi gaar ah siinayay idaacadda Iftiin FM ayaa u riyaaqay dhammaan xubnaha la soo doortay oo u badan dhalinyaro aqoon leh isbedel badanna la imaan kara. dhalinyaradan horta jaamacadaha waxay galeen kana soo baxeen waqtigii siyaasadda mucaaradka wadankan ay ka soo aanbaxday xuquuqdooda la qarin jirayna ay soo ifbaxday. waxaan u ahaan jiray aniga Northeastern Province University Students Association baan u ahaan jiray patron. marka aniga patron u ahaa xildhibaanka laga soo doortay meesha la yiraahdo Faafi jaamacadda ku jiray. dhalinyarada Soomaalida jaamacadda ku jirtay waliba nin aad iyo aad fariid u ahaa buu ahaa fiican imtixaanka u baasay laakiin nasiib xumo intaan aniga soo gelin baarlamaanka jaamacadda bilaabay meeshii uu rabay inuu galo oo ka akhristo haatee muusan gelin meel kale la geeyo oo tiibaa loo quuri waayay dhakhtarnimo rabay dhakhtarnimana uu qualify gareeyay laakiin lama quurin isla waqtiga iyada rag kale jiray oo uu kamid ahaa maxay ahayd ninkan hadda laga soo doortay Lagdheera keenan baa kamid ahaa maanta meel aanan dad lagu faano oo dhalinyaro oo firfircoon oo diyaar ah oo dad jeer wax geli ku dhihi aanan ahayn oo isku kalsoon ay ka soo gelin ma jirto. gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka ayaa tusaale ahaan u soo qaatay xildhibaanka degmada koonfureed ee Faafi Mudane Saalax Yacquub oo caan ku ah Angool dhigiisa Ijaara Mudane Cabdi Cali Sheekh xildhibaanka degmada Lagdheera Mudane Cabduqaadir Xuseen Maxamed iyo wakiilka hablaha Marwa Aamina Udgoonsiyaad kuno adi hadda xildhibaanka waxaa sheegtay Faafi maanees buu leeyahay oo Saalax Yacquub baa laakiin Angool baa lagu yeeraa waxaa jira nin lamid oo asagana laga soo doortay Ijaara wiil dhalinyaro oo aad iyo aad horujeed ah Cabdi Cali Sheekh waxaa jira gabar aad u qiimo badan oo udgoon la dhaho wiman reebka waxaa jira adi kulli ninka laga soo doortay Balambala ninka laga soo doortay Lagdheera wiilasha iyo gabdhaha ka soo galay Mandera waa dad Ilaahay aad ku mahadinayso Wajeer baa sidiisa lamid ah intaba dad isku toosan weeyaan waana isku xiranahay horta aan ku sheegay guud ahaan maan isku xiranahay way bari ahaan county aan isku xiranahay marka anigu rajadayda aad weligay inta siyaasadda ku soo jiray rajada maanta aan ka qabo inaan anagu isku duuban wax badan oo guul aan gaarno ima soo marin. rugcadaagan siyaasadeed ayaa sheegay in baarlamaanka uu u soo joogay waqti mushaar loo qaadanayay in ka yar 10,000 oo shilinka dalka wuxuuna ku booriyay mas'uuliyiinta gobolka in waqtigooda ay uga faa'iideeyaan dadka soo xushay dhaqaalaha ay hayaan maadaama ay ka maarmi karaan marka loo eego mushaarka iyo gunnada ay qaataan. shakhsiga baarlamaanka ku jira oo Kenya joogo uma baahan inuu ninna kala qaad u noqdo ku sheegay dhageysho maxaa ani waxaan soo galay baarlamaanka wuxuu MPga oo 10,000 shilin Kenya qaato maanta MPga marka la isku daro gunnadiisa iyo mushaarkiisa iyo wax kasta la isku daro 2 milyan baa bishi soo gali waxa uu uga baahan yahay Ilaahay ma iyo cid kale u baahan yahay oo intay jirta inta waxa uu helisaa 150 milyan oo shilin buu gacanta ku hayaa ninka xildhibaanka oo maartay caruur oo jaamacad kaga bixinaya oo iskoolaad oo ku dhisaya oo wax kasta uu ku hagaajin kara siyaasad looma galo in masajaabka la dhahay waan ka buuxsan مثلا مال ماذا حي جوتا أنت أسكت قصة لكن قال أسود أنت حرت إيتاي هلو عنك هبل وماذا حلوين هذا معها هذا فهمتي مثلا بالسياسة ده وحويا وأنا ظهرت مبادئ أرجع أميسنتهاي مبادئ أصلا أنا مالكست عمر ديارتهاي وحين هذا حلالي هي إلهي وكل قربونا اللي بانك دقمة الدابة يا قدام بين سيجارة أمهد عليا wakiilka golaha haweenka ee ismaamulkan Marwa Udgoonsiyaad kuno dhigeeda ismaamulada Wajeer iyo Mandera iyo hablaha kale ee sida magacaabista uga tirsan baarlamaanka oo uu ku sheegay marwooyin xijaaban oo aan ku dhaxmilmin raga gabadh udgoon ee falcelin ka dhalato inaad aragtaan filaya oo sawirkaad intay soo saartay adeer Faarax ay dhadhay udgoon caadi ma udgoon waa qof maxay ahayd inay waxaana waa horta aan ku sheegay dadka aqoontana way korortay bari hore anaga aan siyaasadda ku jirnay qofko iyo labadoo kaliya qof jaamici la arki jiray laakiin hadda qofka ugu yar baa maxay ahayd masters haysto hal gabadha ay dadka haysto dhanba bachelor master dad PhD sameynaya dad meesha u doonanaya mishaar ma aha ninka
ماشي هدو هنتي ودوناناي حويان هنتيدا مشار بو دوناي شقي ونقونيسا لكن dadka waxay u badan yihiin dad wixii ka soo galo hataa misharahan loo siiyay dadka dib ugu celiyaan diyaar marka udgoon kharalas waa qof wax weyn ba yaan arki doontaan oo wanaag iyo maartay isbedel badan ay keenayso ku saabsan guud ahaanba maxay county gabadha umal khair ba ku jirtaa oo iyadana ninka Harun ha u dhalay oo isku jirnaa meesha waxa la mid ah gabdho kale iyagana dhowr oo laga soo doortay meesha la yiraahdo wajeer iyo sidoo kale Mandera oo kan dad fiican ba ka soo baxay meesha both the Senate iyo National Assembly adigu dad aad iyo aad rag iyo dumar ba dhisan gebigooda ba anoona kala sarsaarin ayaan hadda isku jirnaa baarlamaanka waxa adigu dad kala dambeeyo oo ma aragtay iimaan leh oo diin haysto oo asturan weeyaan kulligood dad wada gabdhaha waa gabdho wada marwe waad fahamtay Soomaa baarlamaanka wuu khariban yahay hadii dadka barkood way ku dhaxwaashaan laakiin gabdho wada marwe oo reer leh oo caruur leh oo degan oo aad iyo aad ma aragtay xishoonaya ayaa imaadeen oo wax inay qabtaan diyaar weey marka rajada way fiican tahay aad leedahay 5 sano aad anigu rajada maanta qabo waqtiga waxa weeyaan inaan we don't want to waste any time waxaan rabnaa inaan si durdure anoo iswadan aan u howlgalno wax badan oo guul aan gaarno county government kana aan la shaqeyno Cabdiqani Maxamed Iftiin FM magaalada Garissa